halkani waa mid ka mid ah xarumaha lagu dhiso jidhka oo ku yaala magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxaana lagu magacaabaa Kima Gym waana goob ay ku kulmaan dhalinyaro fara badan oo u yimaada sida ay u dhisi lahaayeen jidhkooda mid walba waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iideysto waqtiga si uu ugu dardargeliyo shaqadiisa ma is leedahay mana aaminsan tahay in jidhkoo la dhisaahi qayb ka yahay jacaylka waa sheeko xiisa badan oo aan kororsaday intii aan ku jiray xarunta Kima Gym Shaafici Siciid Buraale oo aan ku sheekaysanay bartamaha xarunta Kima Gym wuxuu iga warramayaa qaar ka mid ah asxaabtiisa oo lagu xujeeyay in jacaylkoodu eber yahay ka sokow inta ay soo dhisayaan jidhkooda qisacadii oo dhacdayna waxay ahayd ninaan saaxiibanahay baa bari gabadh jacaaday markii uu gabadh jacaaday gabadhii baa diiday markaasuu yiri qofta aan jacaadaa ka jisatay warkayga jixin ka waayay dadkan jiilka nool oo baljihay talo cishqiga iyo jabin halayla taliyay yiri qofta way diiday markaasaan ku jahaynay tala qofkii aad jacaaday ka jisatay qofta aad jacaaday baa ka jisatay warkayga jixin ka waday Kima Gym agteeda iyo jidhiska hagaajinay ugu soo jawaabay marka waxaan ku intaad soo dhistay jidhkaaga oo meesha tagtay gobolka laga furay ugu soo jawaabay marka jawaabtii waxay noqotay inay gabadh yeeshay marka jacaylka aad iyo aad ugu qayb qaata in jidhka la dhiso mid kale jidhiska iyo qofku inta suuradiisu ay hagaagsantaayna waxa ka qayb qaata faa'iido intee leeg ayuu leeyahay jimku waxaan hordhigay isla markaasina weydiiyay minkiilaha xarunta Kima Gym Cabdisamed Cali Geelle wuxuuna igu jawaabay sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim soo horaba ugu dhawaajinay faa'iidooyin tiro beer ah ayaa uu leeyahay waxa la yiraahdo jimicsiga ama fitnesska ama jidhisku meesha kuma hayno jidhiskura waa jidhis iyo miisaan dhimidba labadaba faa'iidada uu leeyahay waxa ugu fiican waxa la ugu badan horta waxa la yiraahdo caafimaad ahaan waa indhaha laga qarsan karin faa'iido caafimaad oo waxa la yiraahdo aad u weyn ayaa uu leeyahay secondly wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo jidhka qofka jidhkiisa dhisa physical appearance ama muuqaal qofeedku waxa la yiraahdo wuxuu soo saaray waxa la yiraahdo shape-ka iyo qaabka qofka oo qurxaan waxa la yiraahdo ka qayb qaadanaya in qofka qof attractive uu noqdo caawa kaliya ayaan ku jiray wax badan baan iska kay bedelay ayuu igu yiri Anwar oo ka mid ah dhalinyarada ku jirta xarunta Kima Gym oo aanu caawa ku sheekaysanay bartamaha xaruntani aadbantiin maadaama lagu soo booqateen Kima Gym oo team ee jidhka lagu dhiso magacayga daan ku bilaabo waa Anwar Cali oo ay tahay caawa markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo gymka run ahaantii isbedel aad iyo aad u muhiimsan ayaan dareemay caawa kaliya ku jirtay caawa kaliya ku jiray run ahaantii caawa soo galay waxaan dareemayaa fudayd aad iyo aad fiican waxa weey maan dhidi jirin dhid badan baa iga yimid caafimaad ka dhow tahay haddii Ilaahay badankeed leeyahay jidhkuna si fiican buu ugu dhismayaa qofku macallimiin fiican baa joogta qalab fiican baa yaala kani waa mid ka mid ah dhalinyarada ku jirta xaruntan waxa uu ceeb u arkaa isla markaasina ka soo horjeeda jidhka isku daadsan waa foolxumo nin dhalinyaro ah oo ugu yaraan calool leh waa foolxumo nin dhalinyaro ah oo jidhkiisa isku daadsan yahay waa foolxumo nin dhalinyaro ah oo arkaya ugu yaraan caago ma saagaayo jidhkiisu dhisayo qaab qurux badan leh inaad adigu isku dhex yaacsanaatido waxaad ka wadaa jacaylka exactly wuu ka qayb qaataa ugu yaraan tartiib soo jiidasho ka qayb qaataa halka markaad mar isleed adoo jidhkaagu dhisayo shifkaagu tagayo gacmahaagu buuxaan aad soo martid ugu yaraan saan loo qiimeynka kala lagu qiimeynayaa waxay si doonayaan inanka bal inaan ka mid noqdo kuwa dadka la jecel yahay si aan u dhiso jidhkayga maadaama aan helay sirta ah jidhkooda dhisaahay inuu qayb ka yahay jacayl shamsa raadiyey telefishinka caalamiga ah Laascanood